سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahena ku xiran channelkeena barbaarinta jacaylka isku soo noqod wanaagsan ka fikir markii aad jareed waxaad aaminsaneed inaad wax kasta suuragal ku yihiin waxaad kor jirtay geed weyn adigoo ka cabsanaynin inaad soo dhacayso fikrad baa kugu soo dhacaysay kadibna waad ka dhabeeynasay maxaa yeelay kalsooni sare ayaad lahayd ma aadan garanaynin cabsi ma aadan rumaysnayn in ay jiraan wax ku joojin kara waxaad ahayd geesi aad u dhiiran leh riyo badan iskuna daya hal abuur iyo tijaabo badan markii aad weynaatay wax badan ayaa isbedelay waxa saameyn weyn kugu yeeshay deegaanka dadka iyo duruufaha kugu xeeran waxaad bilowday in aad quusato aad rajo dhigto aad ka baqdo fashil haddii aad wax isku daydo waxaa kula soo darisay walwal iyo murugo joogto ah waxaad dooratay madadaalo iyo waqti lumis badan inaad isku dhaafiso markii aad imtixaan ku dhacdo macallinkii wuxuu ku leeyahay weligaa wax baran maysid markii aad istiraahdo shaqo bilow waxay saaxiibada kuu sheegayaan in shaqooyin aysan jirin oo la heli karin markii aad istiraahdo ganacsi furo waxaa lagugu dhahayaa waad ku khasaaraysaa ama waad ku fashilmaysaa haddii aad damacdo xil sare ama hal abuur kale waxaad la kulmaysaa mucaarad joogto ah haddaba ka taxadar waxa riyadaada iyo hamigaaga dilaya inta badan waxay kaaga imaanayaan asxaabtaada ehelkaaga shaki bay gelinayaan kartidaada waxay kugu sifeynayaan in aadan waxba qabsan karin iyadoo taasi ay jirto haddana adiga ayaa ka mas'uul ah noloshaada adiga ayay kugu xiran tahay in aad maqasho dadka negatifka ah iyo in aad iska dhigatirto dhagax kastoo dadku ay kugu soo tuuraan adiga ayaa ka dhigan kara gidaar ku xaniba ama buunta aad gudubto tus in ay kaa qaldanaayeen ka dhigo dhiirigelin horay kuu dhaqaajisa in aad samayso waxa dadka ku oran jireen ma samayn kartid qorshee noloshaada oo qaabee mustaqbalkaaga daryeel naftaada samee jimicsi joogto ah baro xirfad kasto ilaa aad khabiir ku ahaato akhri buug kasta oo ku anfacaya jooji waqti lumis iyo khiyaali jooji cabasho iyo calaacal badan oo jooji wax kastoo enerjiga kaa qaadaya ha u joojinin waxa dadka ku yidhaahdeen darteed waxaa jiray kuwo ku nacab kuwo shaki ku geliya iyo kuwo ku eedeeya kuwo ku niyadjibiya mar kasta argoosiga ugu wanaagsan waa inaad tusto in ay kaa qaldanaayeen ka dhigo dhiirigelinta ugu xooggan aad weligaa maqli karto markii qof ku yidhaahdo wax ma qaban kartid u caddee in ay kaa qaldanaayeen waxna sahal laguma helo waad kufaysaa oo waad dhibaatoonaysaa laakiin ha joojinin ha quusanin horay u soco u shaqee si adag u istaag in aad tahay qof xooggan ka gudbi kara caqabado badan gaari kara meel sare qabsan kara wax weyn dadna wax tari kara tus in ay kaa qaldanaayeen keliya ha u qaadin colaad ha ka dhiganin cadow cafi kadibna caawi ogow in badan waxay kula rabeen in aad heer ka gaarto nolosha tus in aad isbeddel samayn karto waa anigoo ah walaalkeena Zaki Sama haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan la wadaag asxaabtaada adigoo u sii sheer gareynaya haddii aad nagu cusub tahay si aysan kuu dhaafin muuqaaladeena xiga fadlan channelka subscribe saar like inagu dhiirigeli wixii fikirkaaga waxaad inagu soo gudbin kartaa qaybta hoose ee commentiga